waxa uu ku dhashay isagoo ay malaasan yihiin xubnaha qashin saarka jirka ee dabada iyo tantaranka. muddo 6 bilood ah uu hadda jiro ayuu la xanuunsanayay isagoo lagu sameeyay 2 qalliin si loo helo meel uu ka saxaroodo kana istijoodo, halka uu u haray qalliin saddexaad oo ah kii ugu dambeeyay sida uu sharaxayo Ismaaciil Cumar oo ah aabaha dhalay wiilkani. ilmaha yar oo xanuunsan oo isagoo xanuunsan ku dhashay ay dabada ay malaasan tahay 6 biloodna ay oo la Muqdisho oo kelida laga dalooliyo kelida ka saxaroonayay adeertan qalliin saddexaad qalliin labaad u maray futadii la dalooliyay haddana qalliin saddexaad xirinayo u dhiman tahay oo waxantii aan u haysanaan inaan muslimiinta Ilaahay u soo bandhigo aan tuso xanuunka waa ku dhashay soo daba malaasan tahay buu dhashay kelida laga dalooliyay qalliinka koowaad qalliinkii adeertan labaadna futadii baa la dalooliyay balse waxa uu dhiman qalliin saddexaad oo qaybtan la wareejinayo haddana la xiriirinayo futadii Muqdisho yaala baa lagu dabiibay isla Muqdisho lagu dhameeynaya sida dhaheen takhaatiirtu ay dhaheena waa kaas marka waxaan codsanayaa takhaatiirtaasuna anigu waxantiya uma aan lahayn takhaatiirtaasu wixii qoraal ku baxa wiilkaas way qoranayeen oo buug bay u leeyihiin waxay soo dalacan doonaan inuu markuu bogsoodana taas ma sheegi karo anu ah Ilaah baa sheegi kara baa la soo dalacayaa marka hawsheeda dhamaysano baan xisaabtamaynaa bay dhaheen takhaatiirta. Sheekh Daahir Aw Cabdi oo ka mid ah culimada Puntland ayaa ummadda Islaamka ah gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ka codsaday in la caawiyo qoyska wiilkan yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashkaasi. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala innamal mu'minuuna ikhwa. ninkaasi waa rafaadsan yahay wiil yar uu dhalay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala biqadaa'i wa qadarihi dabadu malaasan tahay oo saxaradii dhinaca laga dalooliyay oo siduu ii sheegay na tusayna idinkuna arki doontaan 6 bilood jiifay isbitaalada ilaa haddana maaragtay 2 goor camaliyo lagu sameeyay una tamar u haynin una bixin karin oo ilaa hadda jiifa isbitaal arrintiina wali ay najixin baa waxaan shafiiciniga ahay ama erga ahayd dadka Soomaalida ah oo gudaha ku jira kuwa maaragtay dibadda jira inaad soo gargaartaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka noocan oo kalena waan ku imtixaananahay Ilaahay wuxuu ma waayin Ilaahay isaga abuuray marka ninkii jeebkiisa wax ku jiro iyo ninkaan maaragtay jeebkiisa waxba ku jirin labada way imtixaanayeen Ilaahay waa isku imtixaaray ninka saboolka ah waa mumtaxan waa la imtixaanay ninka hodanka oo qanigana waa imtixaanayay marka imtixaanka inaan ka soo baxno yaa loo baahan yahay waxaa la hadlayaa dadka muslimiinta ah khaasatan dibadda jira kuwa gudaha jooga dadkii naxariisan jiray bacdallah barrina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka raba naxariis inay ninkaa u soo naxariistaan cinwaanada ama maaragtay telefoonada la inisiin doonana aad ugu soo dirtaan haddaad telefoonkayga inta garanaysa wax ugu soo dirtaanna anaa gaadhsiini Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saasuu igu ogyahay inaan ammaanadaa fuliyo haddii kale idinku la soo xidhiidha maaragtay ka bixiya ninka kharashka lagu leeyahay ilmihiina uu ka jiifo isbitaal waa la imtixaanay. Qadar Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta SBC Boosaaso. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.